waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan guuxa wararka tube wadanka Kenya xaalad ayaa ka soo cusboonaatay xildhibaan la laayahay muddo ku dhow 2 bilood oo nolol iyo geeri aan lagu haynin oo wajeer ka soo jeeda ayaa arintiisa meel xun ay gaartay guud ahaanba baarlamaanada maamul goboleedyada Kenya ayaa shiray sheegayna in shaqooyinkooda ay joojin doonaan haddii aan dib loo soo celinin xildhibaankan oo lagu magacaabo Yusuf Tolfio oo ah xildhibaan laga soo doortay deegaanka Dela ee ismaamulka Wajeer xildhibaankan iyo xogtiisa ayaan halkan kugula wadaagayaa dhinaca kalena ciidamada amniga Kenya wali waxay baadigoobayaan ninka la aaminsan yahay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay dilkii dhawaan loogu geystay magaalada Nairobi ama qayb kamid ah wadanka Kenya hooyo waris iyo gabdhaheeda muuqaalkan ayaan ku eegaynaa qaybtiisa dambe soo dhawaadaan idin leeyahay waa Jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 1 November 2024 saliga nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatay aan ku dadaalno isla markaana masaajidada xilli hore aan camirno waayahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ismaamulka Wajeer oo lagu magacaabo Yusuf Tolfio lagana soo doortay deegaanada Dela iyo Caanoole ee ismaamulka Wajeer nolol iyo geeri ayaa lagu leeyahay xildhibaankan Soomaalida ah xildhibaankan maanta ayaa 50 maalmood ah oo uu maqan yahay waa bil iyo 20 biri xildhibaankan markii dad ugu wardambeysay maalin Jimco ah ayaa waxa rag hubaysan ay ka wateen bartamaha Nairobi gaari ayuu saarnaa wuu socday gurigiisa u socday gaariga taxi ayuu ahaa gaariga ayaa lagala degay meel la aadaynay lama yaqaano ninkii waday taxigii xildhibaanka uu saarnaa ayaa saxaafadda la hadlay oo sheegay in laba gaari lagu horjaray lala degay xildhibaanka la watay uuna garanayn meesha lala aaday guriga Nairobi uu ka degan yahay ayuu ku socday xildhibaanka barigaasi oo la wadanayay ilaa haddana raq iyo ruux waa la waayay banaanbaxyo ka dhacay Wajeer waqooyi bari Kenya siyaasiyiintooda way hadleen waxa arintan sidoo kale ee daawadayaal ka hadlay dad badan oo siyaasiyiinta Kenya ah oo sheegay xildhibaankaasi inay doonayaan in loo soo celiyo xorriyadiisa siyaasiyiin iyo waalidiintiisa iyo walaalihiisa waxay u tageen laamaha amniga Kenya waxay sheegeen ninkaasi inaysan gacanta ku haynin oo ay dhinacooda ka baadigoobayaan xildhibaan Yusuf Tolfio dambiga uu galay lama oga haddii dambi la'aan uu yahay lama oga qoyskiisii oo hadlayay waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda wiilkooda isla markaana waxa dhacday isbuucii hore in meyd la soo dhigay qayb ka mid ah duleedka magaalada Wajeer meydkii ayaa lagu kala cararay qof dheer ayuu ahaa oo dabcan xildhibaanka u suurad eg isbitaalka la geeyay dad badan waxay yiraahdeen meydkii xildhibaanka la helay qayb ka mid ah jirkiisa ayaa maqneed oo la jarjaray baaritaan DNA ah oo lagu sameeyay waxa la xaqiijiyay in xildhibaankan uusan isagu ahayn xildhibaanka qofkan DNA-ga qofkan laga qaaday DNA-gii xildhibaanka iyo DNA-gii reerka marka la isbarbar dhigay isma laha maadaama xildhibaanku uu maqan yahay waxa qasaba in walaalihiis ku DNA uu noqdo DNA-gii sheybaarka guud ee Kenya ayaa sheegay inuusan ahayn qofkan xildhibaanka waa ay quusan waayeen cidda waxay aadeen reerkiisa sheybaar gaar ah sheybaarkii gaarka ahaa wuxuu qiray isaguna in uusan ahayn qofkan xildhibaan Yusuf Tolfio taas oo micnaheedu ay tahay in xildhibaanka raq iyo ruux wali lagu laayahay 50 maalmood kadib daawadayaal marka waxa dhacday in ay kulmeen shalay xildhibaanada baarlamaanada wadanka Kenya hogaankooda baarlamaanada ismaamulada wadanka Kenya 47 maamul goboleed ay ka kooban tahay Kenya way kulmeen hogaankooda waxay sheegeen inay shaqada joojinayaan inaysan amni haysan in noloshooda khatar ay ku jirto haddii Yusuf Tolfio aan la soo celin muddo 7 maalmood ah in shaqo joojinta ay ku dhawaaqi doonaan ay sheegeen arintan oo u muuqata in meel xun ay gaartay isla markaana sida la moodayo xaaladda aysan ahayn xilligan daawadayaal marka xildhibaankaasi aan u duceyno in Ilaahay uu soo saaro reerkiis way murugeysan yihiin hooyadii iyo walaalihii iyo dhamaanba familkii iyo qaraabadii reer Wajeer oo dhan ayaa si gaar ahaaneed arintan uga murugeysan oo baraha bulshada ayaad qoraalada ku arkaysaa dhinaca kale daawadayaal baaritaanadii lagu baadigoobayay Haashim Maxamed Dhaqane iyaguna way socdaan baaritaanadaasi oo si weyn u socda ayaa laga dareemayaa ciidamada amniga Kenya inay feejigan yihiin ninkan ay ku daba jiraan
halka uu ku dhuumanayana ay doonayaan inay ka soo saaraan. dadka laga baadigoobayo Kenya ma ahan Hashim degane ama dhaqane Maxamed ma ahan kaligiisa waxa la baadigoobayaa dad badan oo dilal ka geystay Kenya 97 kiis ayuuna qaray taliyaha booliiska Kenya oo dilal ah in ay gudaha wadanka Kenya ka dhaceen saddexdii bilood ay ka soo gudubnay haween ayaa ku jira rag ayaa ku jira dad caana ayaa ku jira baadigoobkana si toos ayuu u socdaa oo ciidamada amniga Kenya heegan ay ku jiraan. kiisaska la baarayana waxa ku jira kiiska xaafadda Islii ee hooyo waris gabadheeda Nusayba iyo waliba gabadha kale ee habaryarta ay u tahay ee Aamina oo dhamaantoodba in hal gacan ay ku bixin la aaminsan yahay laakiin booliiska marka ay soo qabtaan Hashim oo la baadigoobayo ayaa la ogaan doonaa cidda sida rasmiga hawshan uga dambaysa iyo ujeedadii laga lahaaba. Soomaalida ayaa weli ka warsugaya Kenyaanka oo dhan waxay ka warsugayaan baaritaanada ay wadaan ciidamada amniga sababtoo ah ciidanka amniga lagama hor dhici karo iyagu waxay soo saarayaan marka ay macluumaad helaanba qofkii la qabtay iyo qofkii kiiska uu dul taagan yahay oo la baadigoobayo iyaga ciidamada amniga saacad daqiiqad barahooda bulshada ugu soo qoraya gaar ahaan shaqada ugu weyn DCI ayaa wada isirdoonka oo iyagu doonaya in ay shacabka tusaan Kenya qof dambiila inuusan ku dhuuman karin. Kenya qof dambiila ah oo dad dilay ama dhibaato kala geystay oo amniga qalqal galiyay inuusan ku dhuuman karin ayay doonayaan inay tusaan. marka wali shaqadii way socotaa dadkii oo dhan waxay ka warsugayaan laamaha amniga iyagii ayaa shaqooyinkooda gudanaya wixii macluumaad ah qofkii hayo waxay dhaheen oo kiis ka dhacay Kenya ah hana la soo wadaago anaga raadsanayno qofka adiga dhibaato lagu ma geysanayo lagu ma xirayo su'aala lagu weydiinaya bas. marka wixii ku soo kordho kiiskaasna muuqaaladeena dambe ayaan ku eegi doonaa hooyo waris iyo gabdhaheeda kiiskooda waa mid xasaasi ah oo taagan oo Kenyaanka oo dhan ay aad u xiiseynayaan inay ogaadaan natiijadii halka ugu dambaysa. muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono subscribe saar channelkeena la sii wadaag asxaabtaada kale qaybta commentigan aan ugu duceyno dadka cadaalad sugayaasha ah dhammaantood in Ilaahay cadaalad uu siiyo mahadsanidin.